kun qaar baa gashtay oo anu aan ogahay oo haddana ku qasaaray 100 qof ilaa 150 qof marka ay helaan 50 qof ka faa'iideysa 100 qofoodna maaliyadeed si u sameyn karaan waxaa jira gabdho badan oo ku qasaaray shirkado lacag assalaamu calaykum ahla wa sahla wa marxaba bikum video cusub walaashin rumi jannal oo inala albayt baytukum wal bintu bintukum allahumma salli wa sallam wa barak ala sayidina wa habibuna afdal salatu wa salam ku soo dhawow channelka hadayta markii kugu horsan soo booqanaysid gacmo furan iyo saafiyan kugu soo dhaweyn hadii aad kamid tahay asxaabtayadii hore ama teamkeena horena mar walba waba nala joogtaan oo teamkeena yatiin in kala aantiinina waa abaarba in leeyahay meel walba iyo qurux walba iyo heer walba gaarno ininka ayaan gaarsiiyay janaalkan quruxdiisa indhihiisana waa ininka waa ogtihiin haddaba haddaad weli aad subscribe ka noo saaran janaalka subscribe ka noo saar si aan 100 kun aan gaarno haddii aad ii saartan ii leegaray asxaabtaan la wadaag fiidiyoyaashayna ugu dambeeyay leegta waa ay kaliitaan sababta waxa keenaya waxa laga yaabaa xamaasad badan ay hayso waxa waaye fiidiyoga daawanaysaan kadib leegtu waa ilaawisan leegta noo saar leeg fiidiyoyaasha leeg noo saartaan more subscribe aan helinaa waxaan helin dad cusub aan ugu soo biiraayo youtube-kana kor noo qaadayo sida caadada ahba kusoo dhawaada channelkan waa channelka hooyada iyo dhalaanka waa hooyooyinka channelka lagu dhiirigeliyo waa gabdhaha channelka la yiraahdo maxaad kuu qorshaysan maxaas ku qorshaysanaan jiray maxaas ka qasaaray maxaas haysaa challenge-ga ha ilaawin ayaanta inama xasuusin challenge waxa jiray ambition sanadka soo socda haduu ilaahay idmo ama sanadka hadda aan ku jirno dhamaadkeeda ama sanadka soo socda bisha January ama sanadkan December haduu ilaahay naf uu nagu gaarsiiyo la soo bandhigi doono oo ah maalintaas aan sameyn doono xaflad aan sameyn doono maalintaas aan si wada jir aan ugu dabaaldegi doono gabar walba waxa ay gashatay business gabadhii business abuuratay iyo gabadhii guri joogta ah oo maaragtay samaystay dahabkeedii hantideeda kala samaysatay iyo gabadhii maaragtay wax lacag markaas aruursatay intaba aan ku soo bandhigi doono hadii aad rabtid inaad ka mid noqotid gabdhahaas dhaqaalaha aruursanaya dan si fiican kugu faahfaahiyo waxa waaye gabdhaha waxa aan ku dhiirigelinaynaa in ay isku filnaadaan in ay meel wax dhigtaan in ay bariye bini aadan iyo gacan kale bini aadan ay samaaragtay hoos faris ayaan ugu talgalnay haddana nagala soo qayb galaysi walaal macaanto oo biilkaaga ama waxa shaqaysatid aad rabtid inaad kala meel dhigatid ama aad maaragtay wax kala farsamaysatid waan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow ayaan ku leenahay janaalka haddaba videogan maanta waxaan rabaa inaan uga hadlo abaayooyin waxaa jiro soo weydiiyey lacaga fiican aan aruursanay igu yiri abaayooyin waxaa jiray hore lacag u soo aruursanayay oo aan sanadkan nala bilaabin lacagtiisa haya meel ay ku aaminaan lacagtoodii salla fiidiyoyaashii hore aan ka soo hadlay dhowr fiidiyo ayaan ka soo hadlay oo ku saabsan lacagaha gabdhaha markay lacagta aruursadaan sidee u gashan karaan wax business ah sidee bay u sameyn karaan maalgelin maaliyadeed si u sameyn karaan waxaa jira gabdho badan oo ku qasaaray shirkado lacag ay gashteen waxa kale oo aan rabaa inaan halkan digniin aan ka baxsho dad waxaa jiro ku dhahayo lacagtaada anaga kugu shaqeynayna invest yani anaga waxaan ku gelinaynaa dhaqaalaha waxaan ku gelin doonaa ganacsiyan ku gelin doonaa ama lacagtaadu lacag bay sii dhalaysaa oo shirkadahaasna inta badan waxay u badan yihiin tuuga ayay u badan yihiin ilaa markii laga reebo ma ahane shirkadaha waaweyn ee Soomaaliya ka dhisan shirkadaha waaweyn maaragtay sida Amal Bangi iyo Salaam Bangi iyo Hormuud Bangi iyo Dahabshiil Bangi iyo markii aan ka tagno shirkadaha waaweyn ee lacagaha la dhigto ee la yaqaan ee Soomaaliya caanka ka ah shirkado kale waxaa jiro yar oo waxaa jiro dadka telefono lagu wacayo waa nili dhaaranaya la leeyahay lacagtiina halkaan inii galaysaa bishii lacagtiina intaana inii shaqeynaysaa intaana bishii lagu siinayaa intaana adiga marka inta keentid bishii intaana faa'iido ahaan lagu siinayaa qof walba qofkeena la leeyahay waa la isku sii xirayaa intaas oo qof aan leeyahay imaada adigu almuhiim 100 qof ilaa 150 qof marka ay helaan 50 qof ka faa'iideysa 100 qofoodna halkaasay ku qasaaraysaa waxa laga yaabaa qofka ugu yar 5 gabdhood inay isku darsadeen 2 kun baa laga yaabaa 5 gabdhood inay isku darsadeen baa laga yaabaa laba gabdhood inay isku darsadeen oo 10 kun ay meesha gashteen dadka qaarkood 20 kun oo dollar ay gashteen shirkadaha noocaas 30 kun qaar baa gashtay oo anu aan ogahay oo haddana ku qasaaray marka waxaa jiro shirkado
qarsoona jiro oo dadkana si tuugeysi oo marka hore intay show me sameeyaan oo show out sameeyaan oo maxaan ku raahdaa wax dadka tustusaan oo dadkii faa'iido tusaan oo kana naga faa'iiday intay ku dhahaan hadhowtiina waxay ku leeyihiin kusoo furiso lacagtaadana way kaa qasaarnayaan marka walaal macaanto lacagahaaga meel aada ogeen horta ha iska gelinin lacagtaada meel adigu qalbigaaga uusan murtaax ku ahayna ha dhiganin ha gelinin lacagtaadana qof kale oo bini aadan ah yuu kula maamulin marka ka ruumi ahaan ah aniga lacag maalgashi ah gabadhaha lacagta haysta si hadda gabadh ayaana weedo kale ila soo xiriirtay waxa igu tiri waan shaqaystaa waxay tiri wadamada Yurub hadda soo galay walaali macaantii lacag baan haystaa bay intaas oo kun ah lacagteedu waxay tiri meel aan ku aamino ma hayo gurigaan ku dhex haystaa si aan yeelo ma garanayo familygayga ma aamini karay tiri lacagta sadaan sii waa leega dhacaya waa leega cunaya ana waxaan rabaa lacagteedaas inay ii noqoto wixii aan familygayga siin kara waan siiya lacagtaas waa lacag anigu aan rabo inaan isku maalgeliyo waa lacag anigu aan rabo inaan anigu maaragtay aan wax noqdo waa gabadha Soomaaliyeed markay sida u fakartay ee ka fakartay nafsadeeda ee ku tiraado ani inaan wax qabsadaan rabaa anigu inaan wax yeeshaan rabaa wallahi ana waxa iraada keep going yaa iraada laana gabadha Soomaaliyeed inta badan waxaad moodaa inay u nooshaad moodaa ummada kale inay u nooshaa dad kale bin aadanka inay u nooshaa nafsadeeda dhan bay ilowdaa laana fiiriya hadda waxa baaba'ay waa hooyo Soomaaliyeed waxa ilmaha looga tagay waa hooyo Soomaaliyeed waxa gaajaysan waa hooyo Soomaaliyeed waxa rafaadsan waa hooyo Soomaaliyeed waxa banaanka caanaha iyo yaanyada la fadhiyo waa hooyo Soomaaliyeed dhamaantoodba hooyo Soomaaliyeed waay hooyo Soomaaliyeed ay hadda naftaada marka hore kow ka fakar leeyahay sida hadda gabadhan dhahays anu ma rabo inaan lacagteyda aan cid aan ku aamino lacagteyda inaan isku fangarayo isku maalgeliyaan rabaa cidna xismad ay noqoteenba duruuftana meesheeda weeyaan dagaaladu meesheeda waayo hooyooyinka Soomaaliyeed waxay u soo dhabar adeegeen dagaal gaajo abaar isdil maxaan ku raahdaa raggiyo ku xumaaday hooyada Soomaaliyeed haddii la xisaabiyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxyaalaha u soo dhabar adeegeen waxaan u malaynayaa hooyada adduunka ugu adag waa hooyo Soomaaliyeed hooyo kale ma ahan almuhiim فيديوغا حيغا اما فيديو كدنبه waa inii maqanahay waxaan soo raadin doonaa information buuxa gabdhaha lacagta xoogaa fiican 10 kun iyo wixii ka badan gabdhaha seef garaystay waxaan u soo raadin doonaa meelo la hubo oo maaragtay ay gashan doonaan maalgashiga ugu wanaagsan halka aad gashan kartid ama shirkadaha isleedaha aleeyahay hadda aniga room ahaan hadaan ku tilmaamo hal shirkad oo aan ku raado kaalay dahabshiil lacagtaada dhigo هذا هدي لعقت هذه كاقة صارت أما لعقت هذا الغادع وحيل هذا رومي ما يقولون تلسي إن أنت هبشيل دكتور أدي بركو حلا جاجب هي أنا وكوسو رادين هيا الشركة ده وحن كوسو رادين دونا المحاكم رانا قاب وحلاق شنكرو أما قاب كالشركة ده وحلاق درسن كرو أما الشركة ده ما ركتي أنا إسلام على له كوانا وأنا أكسن وكوسو رادين دونا وأنا إنيسو بندقية وإنيسو شيء دونا أما سأنا وسمع لها قبل هذا لعقت هايستو oo 10 kun iyo ka badan haysto yani 10 kun waxa laga yaabaa maanta dad maalgelin ku samaysatid sanadka dambe inay ku 10 kun inay 30 kun noqotaa laga yaabaa ama 20 kun inay 25 kun inay ku noqotaa laga yaabaa Soomaan oo dhaqaale badan ee ku fuusha laga yaabaa hadii marka aad qasaarin hadaba anu maxaa sameyn lahaa maanta waxa rabaa horta suuqaba riyadeeda maanta inagala hadlayaa markaan ka soo tago mowduucan ah shirkadaha waa inii soo raadin doona waa inii soo gelin doona فيديو هذا إني قصة سمين دونا ميلها وفي عنا إزلاي عليه له ميلها أنا وحلا ديجان دونا لكن أنا أهم رومي وحي عن سمين له دان العكي اللي هاي إني الشيء يا مانت إلا قفك إنه ريديس كهلا عيب ما هدول علياله قفك وح ريديس إنه كهلا عيب ما هاد ما أنت دويدا أنت جاي نعم كي أنت جاي وح إن إيرمان تريد إذا صوفي فيرنا يا وحيالها عن ماركت عن سمين دونا قاد ما waxay soo qorayeen naama IKEA wax weyn nooga dhigaysa arma IKEA wax weyn kaaga dhig IKEA wax weyn miyaan ku irin wax yar waayaan ku irin almuhiim waxaan ku sheegay IKEA alaabtiisa inay raqiis tahay kuwaaradna inay tahay ay ku haynayso raqiis inay tahay ku sheegay alaab degan oo jawi degan inay tahay buuq badnaan sharaxaad badnaan oo iska alaab degan tan ku sheegay teeda kale soo qaadaya ruumiyo taajirtay bii hala waan irin lacagteeda waxaan ku sameeyay laha business aan lacagteeda gashan la horta توتري لعك هذا هلا أنا بيزنس يقر شيء أنا قشطة بيزنس كذا أنا كشقيسية وأنسوق جيم في عن أسمية أي يقر شيء كذب لعكته بيزنس كذا يدلا وحقيس يقر شيء إن أنقولي كوجته أما أنقولي كوجته قولي جاس أنكو جته إن أنقولي كلا كسي كذا
inaan maxaan ku rahda dhulka sii gato inaan sidaas lacagtayda aniga hadhowti laga yaabo inaan noqdoba shirkadaha guryaha gada ee shirkadaha guryaha ee dhulka iibiya shirkadaha guryaha dhista inaan furto soo lagama yaababa oo aniga aan salafkayga aan u samaysto shirkad aan u samaysto ama aan sharing aan samaysto oo shirkado kale aan ku wada kulno dad kale oo aan sharing wada samaysano oo aan xisaab sanadkan ku dhamaadana xisaab xir la sameeyo oo aad tahay qof soo jeedo qof xoolihiisa la dhici kara aad ahayn qof dee wallahi mustaqbalka meelaha aan hiigsanaya waa yaabaysan aniga meel waaweyn aan hiigsanaya laakiin waxaan kasoo horjeedaa lacagtii waan samaystay 10,000 baa maanta aruursaday sanadkan 10,000 barkinta jeebkeeda iigu jirtaa lacagtii maba shaqaynaysaba halkaasay waan tirinaya mar walba halkaasay ii taalaa waa tirinaya ma soconayso lacagtu mar hadday 5,000 gaarto waa inaad bixisaa oo aad suuq geen u samaysataa 10,000 hadday gaarto waa inaad bixisaa meesha aad ku bixinaysidna waxaa laga yaabaa inaad sharci haysan welito waxaa laga yaabaa yani baasboor aad ku safarta inaad haysan inaad waxba isu ku qorshaysanina laga yaabaa markaasoo kale waa ku qasban tahay inaad dhul oo kale oo la hubo oo ma aragtay warqadihiisu aysan ahayn warqado lagu murunsan yahay dhul meel wanaagsan ku yaalo haddii hadhowti dhulkaaga u baahatidna aad dib u iibsan kartid dhulkuma khasaaro waa ogti waxyaalaha khasaaro dhulka kuma jiro hadhowti waxaa laga yaabaa dhulkan aad 10,000 kugu iibsatay maalintaad baasboor heshid oo sharci heshidaa laga yaabaa dhulkaaga inuu kuu joogaaba laga yaabaaba 40,000 $50,000 inuu kuu gooyaaba laga yaabaaba marka dhulka mar walbaba waa u ziyaadaa lacagtiis way zaa'idaa maahane ma naaqusmo khasaarana male marka lacagta haddii aad lacag haysatid oo jaa lacag aa aruusatay gabdhow ila soo xiriiraa jiro oo lacag haysta lacagtir meela ku aaminaa lasaan video horaantiis inuu soo sheegay insha Allah taas talaha inoo wada noqoto oo maaragtay lacagta iska taalan ma wanaagsana lacagta in la maalgeliya fiican hadaa sakada ka bixiso sadaqada ka bixisay wixii kala soo haray halkan qaanada igu jirta kuma anfacaysay lacagtu ina maalgelisi waaye oo aad say lacagtaada ay kugu shaqeyso waa ina lacagtaada maalgelisid waaye insha Allah waxaan rajeynayaa inaad videogayga si fiican u fahanteen waxaan kaloo rajeynayaa talooyinka maskaxdaada mar walba qalbigaaga dhigeyso qalbigaaga muxuu ku leeyahay qalbigaaga muxuu jecel yahay qalbigaaga muxuu yani uu raali ku yahay you know qalbigaaga dhigeyso qof kale qalbigiisa dhigeysan adiga qalbigaaga waxa uu raali ku yahay qalbigaaga meesha uu ku geeyo mar walba meesha waxay tahay meesha saxda ah oo aad rabtid marna maskaxda meel ka rabtaa oo dad kale wax kugu bushgareynaa marna qalbigaaga ayaa meeshii raba marka mar walba ha noqoto meesha aad rabtid ama meesha cid aad aaminaysid qalbigaaga cid uu doono markaas asla aleenay meeshana safe ku dareemaysa xoolahaagu meeshaas ay safe kugu noqonayaan let is ilaaliya digniin is ilaaliya lacagtaada maxaan ku rahdaa islaamayntii ku soo shiraan niman inta odayaal ku soo shiraan business aan ku gelinayna kana ku gelinayna no lacagtaada meel lagu gabariyay gasho gabdhaha la dhacay oo lacagooda laga dhacay wallahi la cadad wala xisaab weeyaan gabdhaha wax la xisaabin kara ma ahan gabdhaha lacagtooda la dhacay marka insha Allah aan halkaas iniga tagayaa وبلاش رومي واي وحي طلعت وسالة كومنتي جينا كسوقايا فيديو قد هكا إلى سوقاتنا رومي وكل سوقاري ده يسي شير كري أصحاب هذا لسي وذال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.